بسم الله waxay saxaafad badan weydiinaysaa hadalkan soo yeedhay mar walba ay oranaya on lef ba diidan in dad muxuu ahaayay loo ciqaabo ama wax laga sheego wixii loo geystay ummadanada marka horta qodob weeyaan dadka Soomaalida muddo badan baa la soo xasuuqayay minilix laga soo bilaabo حيل سلاسة من جزء ملس EBRDF TPLF إلا ما أنت حكومة سلسلة إسحاقية إثيوبيان ستيت كأي عدد كصومالي حسوقة هي وحكى له حسوقة قبقات اسمها ملك الصومالي ذا مدح ذي مركا وحي هاي عدد كصومالي ذا سيد أدون كورد محايد إن الدولة ده صومالي ستيت إن اعتراضات كنا والله حسوقي صومالي ستيت إثيوبيان ستيت بوي حسوقين وإن لا محو هاي لا اعترافه حسوقاس مقدورنا laga siiyo marka inay jigjiga ka bilaabtay in la xasuuq baa loo geystay oo taalo looga sameeyay halkan oo magdhow u bilowdo in maalmo intii qabri la kortago lagu korooyo ma ahayn waa qodobka labaad waxa weeye dadka la leeynayay yahay onlef dadka kale ee ku galayna onlef dartood baa loo leeynayay dadku dhibku ku dhacayna waa onlef marka maxaad u malayn meesha dad shacbi ah oo ku dhibaatoobay inuu onlef u ekaaday kuwii onlefta maxaa marka dadka shahiiday ee dadka la xidhay ee dadka la dhacay ee dadka la qixiyay onlef bay ahaayeen dadkii lagu aglaayayna iyaga dartood baa loo dilay marka dhibaato dadka ku dhacday waa onlef yaa ugu badan ha yeeshee ooyintaana laga badiyaa anaga haddii qof liyaado qoys haddii liyaado dhibaatada dadka ugu badan ay ku dhacday waa xubnaha onlef way iyo saaxiibada onlef way taageerayaasha onlef way iyo shacbiga onlef way waxaana laga badiyaa laakiin oohinta wana laga og yahay mooyaane nalagama dhibaato badan waa qodobka kale waxa weeyaan xukuumadii hore yaa waxa suuqday oo onlefta diidan oo dadkeenu caqligooda in la yasamaa dawladda iyada ciidanka haysta maxkamadina haysata ruuxi Facebook wax kaga qoraba sida shabeelka ugu soo booday kuwa kale yaa ka hortaagnaa waa wax ajiib weey malaha waxay dawladda isma weydiinayaan ba dadku waxba is weydiinayaan dadka caqligooda yasayaan garaadka dadka yasayaan inuu dadku wax fasiri karo inuu wax is weydiin karayo inuu muxuu ahaa wax qiimeyn karayo oo say ku dhici kartaa dhihi karo ma suuragal baa dhihi karo inuu wax roogi kara la yasayaa dadka Soomaalida dad caaqila oo fahmo badan oo il dheer oo dabin ka boodaho aan hadalka loo dusin karinina firdo khani diro khani waa fardihiina waa kuwa geediina wataas midda kale dawladii hore yaa dhaxlay tan maanta joogta dhaxday madaxweyne Mustafa yaa soo doortay rag uu sheegay yaa soo doortay yaa doortay managayna doortay kuwaas isbedelka anaga keenay isagana isbedelku ku yimid oo diyaaraddu ka soo raacay baashibu ku yimid marka yaa doortay isaga xisbiga hore doortay baarlamaankii hore doortay madaxdii hore doortay yaa xilka ku wareejiyay yaa kurs maartay iyaga asaga heegan number 2 ah heegadii labaad ah oo waji phase 2 muxuu ahaay dawladdan joogta ah phase-kii labaad ee heegadii phase-kii koowaad qoladii hore maamulkooda la riday buu ahaa phase-ka labaadna waa qoladan weey marka anaga saaxiibadan kulma nooga eed sheegtaan iyaga saaxiibadan anaga nagu dacweeyaan dibnihiinu ma galo way dundumiseen dilaalkii iyo malaalku wuxuu waa moogta waa isku dhinac marka dadka caqligooda aan la yeesin billahi alaykum runta aan mar isu sheegno oo la fahanana runta u sheegno qalbigeena iyo afkeena hays waafaqo maskaxdeena iyo qowlkeena hays waafaqo wax danta Soomaaliyeed aan ka hadalno waxa kale oo jira dadka Soomaaliyeed taariikhdii inaga tagtay muhiim bay noo tahay laakiin waxa ku jir kamid waxa inagu soo socdo waxaas ay inagu dhacay waa run nabarkaas ay inagu yaalo waa run oo inaan xanuujinay waa run inaan wax ka qabano waa diyaar baan u nahay dawladda badan baa iyo ummado badan baan u soo abaabulay inay naga caawiyaan oo sida arrimahan kale loo galo sida loo sameeyo maxkamado sida loo sameeyo baaritaan sida loo sameeyo magdhow sida dadka dib la isugu soo celiyo ummado badan oo dhibkeena oo kale ku dhacay baan la kaashanay xoogag badan baa soo diyaar garoobay dhanka dawladdu ka socon waay marka hadda runtii shimiqda lagu dhubi jira shaarican tubayna intii wax la iska dhahoon xooga badan iyo xaqiiqo badan iyo ceebo badan oo aan dawladdu u qarinaynay bay kolba meel ka soo fadhayaan marka liderka xabaalaha duu qurun ugu tagaabali inaan inagu isku mashquulo waxa ka fiicnayd inaan wixii naga xumaadayna saxano
waxaan bogsiin karnayna bogsiino waxaanu muxuu ahay cadaalad samayn karana samayno hore iyo mustaqbalkana fiirino oo dadka Soomaaliyeed midayno oo waxa ku soo socda aan ka fikirno oo waxa ku dhici doona in xanuujiyo oo maartay waxbaan ka bedeli karaa waxa soo socda laakiin wixii dhacay waxba kama bedeli karo waan ka daba tagi karaa waxbaan ka daba geyn karaa mooyaan ku dari karaa mooyaan waxa soo socda totally waxbaan ka bedeli karaa inagu waxaan qorsheynay baa fuli kara waxaan qorsheynay baa yaa dhici kara waxay nagu soo socdaan iska leexin karaa waxay naga leexsanaaba isku soo leexin karaa marka inaan taariikhdan ku dul oyna ma aha inaan taariikhdeena nasax mustaqbalkeena sax weeye dadka Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin hogaamin aragti leh dadku kolkayna aragti lahayn taariikhdan bay isku maaweeliyaan kolkay aragti leeyahay nahir baa u muuqda waxay qaban doonaan wax wanaag oo la gaari doono wax wanaag oo loo diyaar garoobo dhibaato loo diyaar garoobo taas yaa dadka Soomaaliyeed maartay maanta dan ugu jirta oo la fadaanahna waan qabnaa dawladana waan iskaashan karaa xoogaga siyaasigana waan iskaashan karaa shacbiga Soomaaliyeed waan iskaashan karaa wax hadda kor ka habsaamayna wuu qabsan karaa oo qabsan waayna wuu qabsan karaa yaan lagu waaweelin in boogaha intii la ruxruxo muxuu ahaay oo inta la qorxiyo mustaqbalka oo la wanaajiyo mid kale waxa la sheegay ONLF inay qurbaha muxuu ahaay caruurtooda ay ku raaxaysanayeen dawladda maanta joogtada qurba joog bay u badan tahay iyaduna laakiin qurbaha intaan tagnay oo qalin u doonano qori u doonano yani Ethiopia iskaga celinay halkan dadka Soomaaliyeed waxbarashada iyo hanaanka iyo caafimaadka lagaga ciyaaray qof Soomaali ana waxba kordhin bay doonayeen miya oo waxbarashada helin oo meel horumar ku sameeyay helin oo meel xorriyad ku helay uusan helin oo meel ku noolaan kara maxay rabeen inay xabsigan dusha ka furan ogaadeen iyo Soomaali state ka jira kulligan inaan ku wada jiro oo foornadii dadka lagu gubahayo qof Soomaali oo ka badbaado uusan jirin miyay rabeen annaga waxa dadka Soomaaliyeed u kordha waan soo dhaweynaynaa waxayna ahayd maanta in dadka Soomaaliyeed waxbarashada caruurta Soomaalida ee qurbaha u qaxday ay heshay tu u dhiganta ama ku dhaweynay hesheen bahayd dawladana laga sugaya ONLF baa laga sugaya xisbiyada siyaasiga laga sugaya maanta inoo taalaay in la faaleeyo waa la qaxay 60 sano ana la qaxinay 70 sano xil salaasan ka qaxnay oo migistan ka qaxnay oo waxaan ka qaxnay muxuu ahaay IBRDF iyo tan hadda joogta marka la yeena qaxinay dadka Soomaaliyeed la isku duubo waxna loo qabto yaan boogahooda lagu celcelin deerkii u sheegay inta dayada haysan dadku dhibaatada ku soo dhacday way og yihiin yaa u sharxay iyaga goobjoog wahay aad u mahadsantiin